السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهانتي نبا مركز الدنيا ذا كجوبتان وانيقو أهل ليبان آذن علي وكم مقعدير ليعات يوتيوب كان داوان السنة والليعات اوفيشيال سد أديق بوجهدو and ما شاء الله أصحابتي ذا قاليقا aad baad u mahadsantihiin sida mar walba id dhiirgelisiin oo aad garabkayga aad u taagan tihiin anigana dhiib iyo dheef aan idinla qaybsado sidoo kalena kama marnahay in mar walba idin farxad geliyo idinkana waa farxad gelisiin commentiyadiina sad ila soo hadashiin oo in kaga mahadcelin doona sidoo kale maysan dhicin mar barnaamijna meeshan aan u soo duubo sida hooyo cudurka ugu dhacay iyo sida ugu caafimaadday waxa la yaab ila ah in hooyaba ay isoo duubtay video 5 daqiiqo gaaraya ayadoona ka faaloonaysa waxyaabaha ay cuntay oo allana caafimaad ugu daray ani ahaan isma lahayn hooyo waxay ku soo duubi doontaa video ee bulshada ay la wadaagayso waxyaabaha ay cuntay ee uga caafimaad cudurkan waa mid aan la yaabay because hooyo ma aysan jeclayn in ay video ka soo muuqato intaasaan social media ku jira hooyo waxaad maqli jirteen oo kaliya magaceeda ama ninaasteeda oo kaliya afkiga ka maqli jirteen laakiin siday tahay wajigeeda umaan arkin marka waxa maanta anagoo jiifo marka muddada ka soo kacayba aan WhatsApp-ka ku arkay video ay hooyo soo diyaarisay inaba aan caadi ahayn hooyo telefonka waxaa ka duubaysay gabar yar videogana waa gabar yar ayay u tahay lagu magacaabo Mumtaaz hooyo waxa ay ku nooshahay oo cudurkan ku haleelay dalka UK arigaasi Britain ayuu hooyo cudurka ku haleelay sida ugu dhacana hooyo kulli badana waa hooyo iska waayeel ah caruurtana iskuulka ayay geysay oo ayayda u tahay tanaga wayna soo korisay koriimo kan loo maharay inkastoo aniga ay yaraankeeda ahay xitaa markuu cudurkan uu qabanayo bilowga waa liga qarqarinay aada liga qarinayo oo liima sheegin inkastoo gadaal dambe liiga sheegay hooyo alxamdulillah waxa la geeyay isbitaal waa la ogaaday cudurka hay inuu asaga yahay dan guriga dib loogu soo celiyay kaniiniyaal yar oo qandhajibiya waa la soo siiyay balse ayada idin sharaxi doonta sida waxyaabaha ay cuntay ee uga caafimaaday sidoo kale gabar walaashay ah ayadana iska xanuunsan ayaa jirtay oo hooyo ay ka naxday xanuunkeeda marka alxamdulillah hooyo way caafimaaday balse hooyo waxay micnaha ay muujisay dhiiranaan ayadoona weligeed allaheed video ay soo duubin in ay bulshada Soomaaliyeed ay u sheegto waxyaabaha ayada ay isticmaashay oo ilaahayna caafimaad ugu daray aniga la had xitaa waan la yaabanahay because hooyo ma aysan jeclayn xitaa in video call lagala hadlo mararka dhif ana xitaa dhibi jiray maadaama yaraankeeda aan ahaa oo aan ku ciyaari jiray markaan FaceTime ka kala hadlay hooyo waxay go'aan markan ku qaadatay in ay video u soo duubto bulshada ku xiran channelkan iyo ummadda Soomaaliyeed videoga waa video aad xoogaa mugdi ah because hooyo hadda xanuunka ka soo kacday WhatsApp-na waa lagu soo diray oo ma ahan video aad micnaha clear u ah balse waa dareemi doontiin oo wax la fahmayo ani markaan daawaday waan fahmayay sidoo kale gabadha yarta ayayda u tahay anigana abtiga aan u ahay Mumtaazna wax yar way yara neefsanaysa gurigana qof weyn muusan joogin oo video ka duubo insha Allah video waa idin bilaabi doona hooyo maxay isticmaashay oo daawooyin ah way ka faaloonaysaa horteed ayay soo dhigatay miis yar ayay ku sharxanaysaa insha Allah anigana waan daawanaya idinkana ila daawan hooyo videogeeda intan waa idin soo saari doona hooyo macaan alxamdulillah ilaahay wuu caafiyay halkan idin soo saaraya idinkana ila daawada anigana waan daawan doona hooyo macaan waa kaaga mahadcelinayaa sida ummadda Soomaaliyeed u jeceshahay oo waliba adiga waliga aad video aad duubinba intaana qof oo channelkiisa ku xiran aad video u soo duubto anigoona ku dirin aad baad mahadsantahay hooyo macaan ajran Allah ka siiyo insha Allah hooyo waxyaabaha ay cuntay oo ilaahay caafimaad ugu darna bal ila yara daawada بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta joogto gaar ahaan waxaan la hadlayaa liibaan aadan cali liicaato waan hooyadiis ahay magacaygu waxaa la daahir ku magac dheer hooyo warsan waxaan leeyahay hooyo meeshaan waxaa yimid cudur xun Allah naga najiyo cudurkaas hooyo waxaa looga hortagaa quraanka ilaahay ummadda islaamka waxaan u sheegayaa culmiya caamo waxaa looga hortagaa quraanka ilaahay waa ummadda ilaahay ku daaweeya quraanka ilaahay baan ilaahay ugu daaweynaya aniga haddaan waxa idin soo koobo xanuunkan wuu haleelay maadaama qof iskuulley aan ahaa ilmaha iskuul geynaya ka keenaya liidal ka soo adeegayay xanuunkan wuu haleelay
waan soo maray kulay sidii aad dareemaysiinba hooyo waxay idiin sheegaysaa in cudurkan maadaama ay guriga ka bixaysay ilmaha yaryarkaana ayid u tahay ee iskoolka ay ka doonaysay ayna geynaysay in meesha loo socdo dee waa meel xaafadda ka yara fog waxaan loo raacaa basaska wadamada Yurub tumaa taqaanin basas yar ayaa loo raacaa dadkaas dhexdooda intay baska saarneed ayuu cudurkan oo hooyo haleelay inay fahantiin arjinayo markiisii dhibkiisa waan soo maray waxaan u sheegayaa ummadda islaamka oo liibaanow hooyo waxaan kuu sheegayaa tan waa basal tan waa tuun tan waa lin dhanaan waa lin cagaar tan waa xabatu sawdo oo midda midhaha ah mooyaha lagu shubanayaa waa la tumayaa in yar la tumayaa shaha lagu darsanaa maasha allah horta inta hooyo hadeertaan oo muhiimka ay noo taabanayso dalkeena waa laga helaa alxamdulilah cudurkan adduuweynaha dhan galaaftay hooyo waxa ay isticmaashay oo ilaahay caafimaad ugu daray dalkeena waa laga helaa oo weliba liinta dalkeena ka baxda tunta sidoo kale dhagayaraha sidoo kale iyo xabasooda la tumay sax san dareemaya xabasooda alxamdulilah rabbil caalamiin cudur kasta daawo leeyahay ilaahay baa daawadiisa soo sheegay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegay sida naloo sheegay culimadu noo sheegtay tan waa xabatu sawdo waa saliideeda waa xabatu sawdada saliideeda weeyaan laba goojaad shaah ku dhibsanaysaa shaah haddaad rabto waa caddaysane haddaad rabto waa madowgiisaad ku cabay madowgiisa gaas buu leeyahay liindhanaanta gaas bay leedahay liindhanaanta waad jaraysaa markaad jarto koobkaad ku lisaysaa markaad ku listo adan waxba ku darin biyo ku darin waxba ku darin sideeda tahay sheekadeeda tahay ayaad cabaysaa oo wax kasta ka horumarsanaysaa subaxii habeenkii waxaa waaye bakteeriyada iyo dilaysa tan waa qunso fiidiyoga gadaal dambe asagana ayaa idin wada fasixi doonaa insha allah si aad uga bogotiin hooyo sidii wax idin fahansiinayso laakiin hooyo wejigeeda si fiican markaa u fiirisid xanuunka hadda dhow ayaa kasoo kacday wejiyada dhan madow yar ayuu ugu reebay balse alxamdulilah ilaah ayaa kasoo kiciyey qunsul hindi waxaan u duubayaa weligay ma iska duubin maaragtay video waxaan u duubayaa ummadda islaamkana waa u sheegaya liibaanow hooyo in la jecel yahay baa tahay adiguna u sheeg muxuu ahaayey maaragtay ummadaada iyo saaxiibadaada iyo maaragtay faniskaaga inta ka dhexeeya qunsul hindi waa daawo shaaha lagu darsanaya sidaa baad leedahay koob shaah kulaa soo dhiganaysa sidaas ayaad leedahay shaah ayaa ku darsanaysaa waa ku qasanaysaa dhag shaaha ku qasanaysaa haddaad rabto waa caddaysanaysaa haddaad rabto muxuu ahaayey shag waa madowgiisaad ku cabaysaa aad iyo aad hooyo waddanka hadda ay joogto waa UK ummadda ka caafimaaday waa dhif iyo naadir cudurkan dhif iyo naadir sida talyaaniga camal ayuu u haayaa marka alxamdulilah qandhaad isku aragtay iyo qufac badan caanaha looda digsi ku karkarinaysaa waa isku hurinaysaa waad kabanaysaa qof uga yasirma qandhaad isku aragtay kan waa baristimoorkaasaad isticmaalay ummadda islaamka waxaan u sheegayaa baalka cudurkan daawo male waa daawaahu leeyahay ma jirto daawadiisu waa markuu kaa jabayona inaad cuntid muxuu antibiotic capsule ahay marka ugu horeysana qandhada jebinaysina waa inaad qandhada isku dayin oo aad isticmaasho baristimool qandhada markaad isku aragto baristimool halkan waxaan ka salaamaya wiilashii liibaan aadan cali liicaato muniir wiilashayga aadka u jeclahay muniir ilmahayga aadka u jeclahay hooyo warsana waa idin salaamay 14 boqolka qur-aanka ilaahay baa idinku salaamay salaamta islaamkaan idinku salaamay waan idin salaamay ilaahay waxaan kaga baryahayaa caafimaad ilaahay caafimaad baan kaga baryahayaa ilaahay idankiis qof kasta oo xanuunkan ilaahay ku sababin oo ilaahay sabab uga dhiginin waa inuu isla tacaalka waana ku dadaashaa waa inaad waxyaalaha ilaahayna siiyey oo maaragta waxyaalaha bakteeriyada disha kan qandhada jiriya kan waa tume tan waa tume ka shiimooyaha gelinay waa tume biyo qandhacaha ku qarsanay waxaan kaloo soo hilmaamay sanjabiilka sidoo kale waxay inta meesha ay soo dhigatay waxyaabaha isticmaashay ee hadda ilowda waxaa ka mid ahaa sanjabiisha oo shaaha lagu darsado waa taqaanin insha allah taasna yaa laga iloobin
sanjibisha cagaarka waa tumaysa shaha ku darsanay cuntada ku darsanay maraqa ku darsanay ilaahay waxaan ka rajaynayaa ummaddan ilaahay ku daaweeyo ilaahay ummadda ku daaweeyo saasaan ilaahay ka rajaynaya waan salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah hooyo macaan aad baad u mahadsan tahay waan kaa qabnaa fariintan quruxda badan leh aad noo soo dirtay waan kaaga mahad celinaynaa ilaahay ajar ha kaa siiyo ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan u rajaynayaa in ay walaalahoodii ayagana ay gaarsiiyaan ay sii shaargareeyaan hooyo macaan ilaahay hadda wuu caafiyey daawooyinka ay cuntayna dhammaan dalka soomaaliya laga helaa xitaa kiniiniga madax xanuunka inta kale waa geeda annaga noo baxa maasha allah insha allah dadaala aada u taxadara hooyo waad ujeedin markii ugu horreysay ay video idiin soo hor fadhiisato idinkana ku darsada intaas oosan waxaad maqli jirteen hooyo warsan waa tan alxamdulilah inkastoo aniga nolosheeda waxyaabaha aan ugu hadleeyey aan joojiyey oo documentarygii aan idiin waday waxaan u joojiyey horena waa idinkugu sheegay waxaan u badanahay familada garabkooda laga baxay aabba ha ahaato walaal ha ahaato awoowo ayeeye ha ahaato intaba saaxiib ha noqdo intaba garbahayga waa laga wada baxay that's why ayaan u joojiyey in aan familkayga aan youtube keeno ama aan uga hadlo hal qof ayaad barateen si fiican oo wada barateen waan walaalkay shooli cabdifataax aadan cali sidoo kale caawana waxaa si kadiisa aa ku aragteen oo lagama maarmaan ay noqon weysa in hooyo ay soo hadasho ayagoo cudurka adduunweynaha dhan uu galaaftay in waxyaabaha ay ku caafimaaday ee soomaaliya dhan u sheegto hooyo warsan waa tan waad war aragteen way caafimaad qabtaa abbaayana xoogaa yar weli way yara xanuunsan tahay maadaama hooyo markuu cudurka ku cusbaa ee aada ugu naxday weli sidii u jiifta insha allah u soo wada duceeya in abbaayana ilaahay soo nabad kiciyo idinkana waxaan idin rajeynayaa caafimaad aadna u taxadirtiin sidaas iyo nabadgelyo insha allah kulanti dambe oo xiisa leh aad baan idin salaamaya bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed halkan waxaan ka salaamahayaa ummadda islaamka meel kastii joogto gaar ahaan waxaan la hadlahayaa liibaan aadan cali liicaato waan hooyadiis ahay magacaygu waxaa wa daahir ku magac dheer hooyo warsan waxaan leeyahay hooyo meeshaan waxaa yimid cudur xun allaha nagala jeen cudurkaas hooyo waxaa looga hortagaa qur-aanka ilaahay ummadda islaamka waxaan u sheegayaa culmiya caamo waxaa looga hortagaa qur-aanka ilaahay waa ummadda ilaahay ku daaweeya qur-aanka ilaahay baan ilaahay nagu daaweynaya aniga haddaan waxaa idiin soo koobo xanuunkan wuu i haleelay maadaama qof iskuulley aan ahaa ilmaha iskuul geynaya ka keenaya liidal ka soo adeegayay xanuunkan wuu i haleelay waa soo maray kulaylkiisa iyo dhibkiisa waan soo maray waxaan u sheegayaa ummadda islaamka oo liibaanow hooyo waxaan kuu sheegayaa tan waa basal tan waa tuun tan waa lin dhanaan waa lin cagaar tan waa xabatu sawdo oo midda midha ah mooyaha lagu shubanayaa waa la tumayaa in yar la tumayaa shaha lagu darsanaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin cudur kastaa daawo buu leeyahay ilaahay baa daawadiisa soo sheegay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegay sida naloo sheegay culammadu noo sheegtay tan waa xabatu sawdo waa saliideeda waa xabatu sawdada saliideeda weeyaan laba goojaad shaah ku dhibicsanaysaa shaah haddaad rabto waa caddaysane haddaad rabto waa madowgiisad ku cabay madowgiisa gaas buu leeyahay liindhanaanta gaas bay leedahay liindhanaanta waad jaraysaa markaad jarto koobkaad ku lisaysaa markaad ku listo adan waxba ku darin biyo ku darin waxba ku darin sideeda taa seekadeeda taa ayaad cabaysaa oo wada wax kasta ka horumarsanaysaa subixii habeenkii maxaa waaye bakteeriyada iyo dilaysaa tan waa qunsul hindi waxaan u duubayaa weligay ma iska duubin maaragtay video waxaan u duubayaa ummadda islaamkana waa u sheegaya liibaanow hooyo in la jecel yahay baa tahay adiguna u sheeg muxuu ahaayey maaragtay ummadaada iyo saaxiibadaada iyo maaragtay faniskaaga inta ka dhexeeya qunsul hindi waa daawo shaaha lagu darsanaya sidaa baad leedahay koob shaah kululaa soo dhiganaysa sidaas ayaad leedahay shaah ayaa ku darsanaysaa
waa ku qasanaysaa dhag shaaha ku qasanaysaa haddaa rabto waa caddaysanaysaa haddaa rabto muxuu ahaye ishag waa madowgiisaad ku cabaysaa qandaad isku aragtay iyo qufac badan caanaha looda digsi ku karkarinaysaa waa isku hurinaysaa waad kabanaysaa qof ugu yasirma qandaad isku aragtay kan waa barastimoorkaasaad isticmaalay ummadda islaamka waxaan u sheegayaa baalka cudurkan daawo male waa daawaahu leeyahay ma jirto daawadiisu waa markuu kaa jabayona inaad cuntid muxuu ambiyootic kaabso ahay marka ugu horeysana qandhada jebinaysidna waa inaad qandhada isku dayin oo aad isticmaasho barastimool qandhada markaad isku aragto barastimool halkan waxaan ka salaamahayaa wiilashii liibaan aadan cali liicaato muniir wiilashayga aadka u jeclahay muniir ilmahayga aadka u jeclahay hooyo warsana waa idin salaamay 14 boqolka qur-aanka ilaahay baa idinku salaamay salaamta islaamkaan idinku salaamay waan idin salaamay ilaahay waxaan kaga baryahayaa caafimaad ilaahay caafimaad baan kaga baryahayaa ilaahay idinkiis qof kasta oo xanuunkan ilaahay ku sababin oo ilaahay sabab uga dhiginin waa inuu isla tacaalka waa inaad ku dadaashaa waa inaad waxyaalaha ilaahayna siiyey oo maaragta waxyaalaha bakteeriyada disha kan qandhada jiriya kan waa tume tan waa toon waa tume ka shiimooyaha gelinay waa tume biyo qandacaha ku qasanay waxaan kaloo soo hilmaamay sanjabiilka sidoo kale waa tume sanjabiisha cagaarka waa tume shaha ku darsanay cuntada ku darsanay maraqa ku darsanay ilaahay waxaan ka rajaynayaa ummaddan ilaahay ku daaweeyo ilaahay in ummadda ku daaweeyo saasaan ilaahay ka rajaynaya waan salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu